وبندقنا وحنوجو جوابي حسن شيخ أرين دول كسابسن كلامه هذا الله يوم تاسو معناه هذا تاي مدحوينه كلامه جعله عتاوجا يعبشة الدنيرتا للظلمنا هاي برسة تاس بدل كذي إنه وحن آمنسن هاي إن تهاي مدحوينه ودارتي كربستاج الدنيرتا وحنا كافيدينا جواب وحنا كافيدينا جواب علين ونكسن مدانا مدحوينه عافظة كلونك وحنا لقى بركيعي dad sanado badan deris ahay isla markaasna kooda daruufaysan garab istaaga balse nasiib daro dadkii xaafadda oo dhan maanta reero kale ayay dulsaar ku yihiin reeraha qaar waalidkii iyo caruurtii waa kala irdhoobeen meelna iskuma sheegaan mana awoodaan dhul ay iibsadaan iyo mid kiro ah toona sidaa darteed mudane madaxweyne waxaan codsanaynaa in dawladdu dib u dejin noo samayso naguna maarayso qaabkii ay xal ur aragto ama ay magdhow nasiiso maadaama wixii aan dunyo haysanay meesha lagu burburiyay mudane madaxweyne waxaan la soconaa in shakhsiyaad maamulkaaga ka tirsan ay guryaha qaar dhismo ku bilaabeen oo durba ay la wareegeen qaar kalena ay hadda ku tala jiraan sidoo kalena waxaa xog ku helaynaa in sharikado private ah dhulka intiisa badan lagu wareejinayo iyadoo la sheegayo in darjiin laga dhisayo waxaana isweydiin mudan maxaa keenaya in darjiin laga dhisayo meel dad masaakiin ah laga kiciyay iyadoo ay jiraan goobo kale oo darjiin ahaan loo asteeyay balse ganacsato ay geysatay cutubyo cuqubo weyn ayaa ka dhalan karta in dad masaakiin ah dhul laga kiciyay shakhsiyaad hanti haysta lagu wareejiyo iyadoo weli aysan hooy iyo baatoona heli dadkii cagafta la geliyay ugu dambeyn mar kale waxaan kaa codsanaynaa mudane madaxweyne inaad si dhab ah u wajahdo arrinteena oo aadan fududaysanin isla markaana aad noogu soo jawaabto cabashadeena mahadsanid mudane madaxweyne halka kaliya aniga aan ii muuqdo waxa waaye